Sheekh Abdiraxmaan Sheekh Muuse Tubeec oo kamid ah culimadiinka gobolka Awdal oo maanta qaar kamid ah warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arintii lagu eedeeyay barasaabka gobolka Awdal wuxuu sheekhu bulshada ugu baaqay in arrimaha diinta aan la siyaasadeen. Sheekh Abdiraxmaan Sheekh Muuse Tubeec oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay inuu xiriir la sameeyay barasaabka gobolka Awdal isla markaasina arintaasi wax ka weydiiyay waxuna uu xusay. waxaan jeclaystay inaan ka hadlo qadiyad dhawaanahan magaalada aad iyo aad u gilgishay oo socotay muddo 2 toddobaad ah waa qadiyadii ninka barasaabka ka ah gobolka Awdal Abdiraxmaan Axmed Cali lagu eedeeyay inuu meel xaflada diinta islaamka ku aflagaadeeyay qadiyadaas oo culimaduna ay aad uga hadleen sharciga wuxuu ka qabana ay sheegeen laakiin magacyo badan yeelatay siyaasiyiintuna ay si gaar ah u adeegsadeen waxay noqotay shay magaalada gilgila oo aad iyo aad macna badan iyo magacyo badan loo sameeyay shakhsiyan maanta aan waxaan jecelahay qadiyadaas inaan ka gungaaro salaadii duhur dabadeed maanta waxaan isku dayay inaan anigu si nasteexa ah ugu tago barasaabka gobolka waxaan ogaaday inuu ka maqan yahay magaalada Borama oo Hargeysa tagay telefonkiisa ayaan wacay goor dhaweyd oo salaadii casir horteedii ahayd ayaan garaacay barasaabka waxaan ku yiri waxaan u socdaa nasteexo maxay leeyahay diintu adiinu naseexa diintu waa nasteexo dhamaan muslimka oo dhan bay u tahay naseexadaas waxaan kugu socdaa naseexan kugu socdaa niyahow nin madaxa tahay haddii warkaasi ka dhacay oo aad aflagaadada geysatay waxa laga doonayaa inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo toobad keento oo ummadda hortada ka qeerato oo cadeyso deetana in badan baan waano iyo wax sheeg ku waday anoo waliba hadallada ku adkaynaya oo sheegaya miisaanka ay leedahay eeda marka lagu soo eedeeyo inaad diin islaamka aad wax yeelayso ama aflagaadisay ugu dambeyntii in badan markaan wada hadlaynay ayuu wuxuu dhaari maray wuxuu ugu yiri Tubeecow wallahi billahi tallahi wa dar magaca Allah ku dhaartay ku dhaaranay buu yiri anigu si ismoogaana iyo si ula kacaba dhaar taasaan marayaaye ma garanayo inaan anu diinta caayay meeshuna buuq iyo qayla sawaxan baa ka jiray meeshana caray waxba lagu kala tagay saasay hawshu ahayd ninkaasi dhaar buu maray qofka muslimka ah anu naseexan ugu tagay xoolo kama dooneynin masaf siyaasad kama dooneynin waxaan doonayay qadiyadaas inay soo afjaranto haddii qofkii ku leeyahay ilaahay baan ku dhaaranayaaye anigu ma oogi hadalka inuu afkayga ka soo baxay wixii inta ka dambeeya in qofka laga hada wanaagsan oo qofkaasi ilaahay isaga loo daayo qofka hadduu ku leeyahay qof muslim aan ahay وانا شهادنيا الى وانا توبت كينيا habeen maalinba oo saako oo qofkii ku calaacalayo walka taagan yahay nimayaho waxa lagu sii daba socdo oo buuq laga raadiyay meesha kuma jirto dadyoga muslimiinta ah dhamaantood waxaan ugu nasteexaynayaa diinteenu waa nasteexo diinteenu waa diin wanaagsan maaha riwaayad iyo ciyaar maaha fagaarada joogsada maaha tul iska hadlo reeb lagu sheega maaha wal Allah laga baqo إلهي درتي أنا ونصيحينيا أنا هذا الكائن لا يهاي والله ضربا مرياي إن أجدك لك لهين إن عدك دفاع مدونيو إن عدك تاجر مدونيو إن عدك حماية مدونيو وحقيقتها إن الصحة إلهي درتي لمن يهودين تينو أينو دين تينو قبصنا يعني دين تلاقي دين ورن ذاتك لوك تاجو أو لوك يعني لقى دين وردك السياسة دلهو سياسة دين يسيريد كينا halkeeda la mara